dadka ku nool dalka Sweden ayaa waxaa loo jeedinayaa digniino taas oo laga cabsi qabo in ay halkaasi ka dhacaan weeraro ay ugu magac dareen ama ay ku sheegeen argagixiso kaasoo laga soo horjeedo falkii lagu gubay kitaabka Quraanka ah. dalka Sweden waxaa ka jira digniino loo jeedinayo dadka ku nool dalkaasi oo ku saabsan in ay dhici karaan weeraro ay ku sheegeen in uu yahay kuwa argagixiso kaasoo bulshada ku nool dalkaasi cabsi ama walaac weyn ku abuurtay. sidaas daraadeed waxaa kulan yeeshay laamaha ammaanka ee dalka Sweden iyo bulshada ku nool dalkaasi. si gaar ah waxaa kulankan loogu casuumay mas'uuliyiinta amniga ee xaafadaha ay ajaanibtu degan tahay oo ay Soomaalidu ay qayb ka tahay. muhiimadda ugu weyn ee kulankan ayaa lagu sheegay in ay booliisku siinayeen dadka macluumaad la xiriira waxa la gudboon qofka markuu qatar la kulmo. markii horeysay hay'adda amniga gudaha ee dalka Sweden ee la yiraahdo SAPO waxa ay sheegtay in sare loo qaaday heerka feejignaanta ee amniga gudaha iyadoo laga baqayo in ay dhacaan weeraro ay ku sheegeen in ay yihiin kuwa argagixiso. ay ahayd markii nin ka soo jeeda dalka Ciraaq uu kitaabka Quraanka Kariimka ah ku horgubay masaajid hortiisa waliba iyadoo ay tahay maalin Ciidul Adha ah. Salwal Mumika oo xaqiisa dambe ay taagnaayeen askar ka tirsan ciidanka booliska isaga oo ku sugan banaanka hore ee masaajid ku yaala dalka Sweden agtiisana ay ka baxayso ama ay ka daaran tahay heesta qaranka ee dalka Sweden ayaa kitaab Quraan ah oo uu gacanta ku waday waxa uu kala jeexay laba qaybood kadibna dab ayuu qabadsiiyay taasi oo ka careysiisay muslimiin badan. dalka Sweden muslimiinta ku nool waxaa lagu qiyaasaa 250,000 oo qof ilaa 400,000 oo qof oo ay Soomaali badan ay ku jirto kuwaasoo dalkaasi gaaray 30 sano ee u dambeysay. madaxda dalka Sweden ayaa dareen digniin la ka bixiyay falkaasi. ra'iisul wasaaraha dalkaasi walaac u weyn ayuu ka muujiyay Khamiistii cawaaqibka ka dhalan kara in dibadbaxyo ay sameeyaan muslimiinta ka careysan kitaabka Quraanka Kariimka ah ee la gubay. Mumika waa qaxoonti ka soo jeeda dalka Ciraaq waxa uu dalka Sweden u ololeynaya in gabi ahaanba laga joojiyo kitaabka Quraanka ah waxaana falkaasi ka carooday malaayiin muslimiin ah iyagoo aragtidooda ku dhiibanayay baraha bulshada. wadankii ugu horeeyay ee arintan ka hadla waxa uu ahaa wadanka Turkiga waxa uu madaxda dalka Sweden ku eedeeyay in ay iyagu ka dambeeyaan falkaasi lagu gubay kitaabka Quraanka ah.